وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد ولا ليال خطبة لبدأ قيود وسيدة المغليسين وحي كهد ليسي أرمها واقعية وبرشدة نرشدة الدين تيدا لبدن كهاية أرنتاس قبيالة إبعتدا أي كل هذا المجتمع برشدة والدين تيدا الدين تيدا إبعتدا أي كل هذا يعني لبدأ قيود وخطبة لبدأ كهد ليسي ولا الدين تيدا الإسلامكو waxay samaysay macaayiir iyo halbeegyo mujtamacu uu isku qiimeeyo oo isku xushmeeyo oo isku qadariyo macaayiirtaas iyo halbeegyada xadiiskii khudbada inoogu jiray oo uu warinayay imaam al-Bayhaqi fi kitaabihi shu'ab al-iimaan dardaarankii xajjatul wadaac khudbadii dheeray نبينا صلى الله عليه وسلم ومضى كل دردار ميي وحا خطبة كجري إنه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى أحددي معاييرتا أي اسكو قيميان ويسكو كالفضلان وحير النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ضدوا ربك على عابد إنسان وكلمة آبها أتكوّد تمادين وهل آبه بني آدم كان دنيا كنا لودن هل آبه أي كلمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه آبها سؤال نبي الله آدم مقفت هذه دنا جرا وملك لكلمة آبك على سيد الصعود qof aabba kale galaya ma jira ilaa nabi aadam weeye waa asaaska iyo gundhiga aadamaha dhan halka aabbe ayaa aabba uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayh ala la fadla li arabiyyin ala ajami qof arab ee qof ajami fadli iyo daraja ka sheegan karaa ma jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayh qof yiraaha carabaan u dhashay oo ajamiga anigu aan ka fadli badanahay ma jiro wala li ahmar ala aswad qof cadina darajo iyo qiimo ma sheegan karo dadka madow aniga ka wanaagsan oo ka sharaf badan ma dhihi karo illa bi taqwa alla ka cabsiga mooyee waxa bini aadamku ay ku kala badan yihiin ku kala darajo weyn yihiin halbeega bini aadamka lagu kala fadilaa alla ka cabsi un baa jirtu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayh marka waa halbeega rasmiga oo bini aadamku uu ku kala fadli badan yahay waa intaas bas ataqwas hakafiyan ka fadli badan qofkii ka alla ka cabsi badan إلهي سبحانه وتعالى معيارك يا هالبيقى يسوى تلماما وحليه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي وحليه سبحانه وتعالى بن آدم وحال كاب ورني من ذكر وأنثى هل آبه iyo hal hooyad ka soo wada jeedaan waa nabi aadam iyo xaaskiisii xawaa halkaas aan idinka abuuray ilaahay subhanahu wa ta'ala waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu kabacdi ilaahay wuxuu leeyahay waxaan idinka dhignay oo idin qaybinay qabaa'il kala duwan qabiil hebel qoys hebel qabiil fulaan ayaan kabacdi ilaahay wuxuu leeyahay idinka kala dhigay xigmada qabaa'ilka dadka looga dhigay ayaa ilaahay inoo tilmaamay wuxuu leeyahay li ta'aarafu inaad isku garataan qofkaan awoowihiisa in la garto adeerkii in la garto aabihii in la garto jufadiisa in la garto qabiilkiisa in la garto oo nasabka iyo si gaara iyadoo hal aabe lagu wada abtirsanayo si gaara haddana
aabbayaasha si gaara isagu uu uga yimid inuu qofka aqoonsado oo si gaara u xushmeeyo oo ixtiraamo saasaan idinkaga dhignay qabaa'il uu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu daba dhigay subxaanahu wa tacaala ina akramakum cinda allaahi atqaakum kiina idinkugu wanaagsan ilaahay agtiisa waa midka idinkugu alla ka cabsiga badan hada huwa almicyaaru alwaxiid lilislaam kaas waa miisaanka dadka ilaahay uu ku kala miisaamay nabigiisuna uu ku miisaamay sala allahu wasalam wabaaraka calayh indilaaqaas marka iyo fikirkaas wixii ka beddelan waa jaahiliyu nabigu ku tilmaamay jaahilnimo halbeegaas wixii khilaafsan oo qofkan qabyaaladnimadu waxa weeye an tactaqida annaka afdalu min alaakhariin bilownika aw bijinsiyatika aw biqabaliyatika aw biiqliimik qabyaaladnimo waxaa la yidhaha qofkan inaad aaminto inaad ka fiican tahay midabkaaga aada uga fiican tahay tusaale ahaan waad caddahay oo midabkii marka inaad cunsuriyeyso dadka ku cunsuriyeyso dadaa jira soo maaha midabka dadka ku faquuqa oo ku cunsuriyeeya waa qeyb cunsuriyadda ka mid ah oo diintu ay la dagaalamayso waa aragteen gaaladu waxay isku faquuqaan cunsuriyatu lown waxay si gooniya ay u faquuqaan ama ay u xaqiraan ama ay u yasaan kalarka madowga ah ayay gaaladu si gooniya u yasaan mahmaa balaqad makaanatu si kastoo qofka madowga uu uga aqoon badan yahay uga cilmi badan yahay hadduu doono uga hanti badan yahay midabkaas ayaa miisaan isaga agtiisa ka ah marka qofku inuu aamino qofka kale inuu uga fiican yahay midabnimo iyo kalar uu uga fiican yahay waa jaahilnimo uu nabigu ku tilmaamay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ama qofkan inaad macaayiir uga dhigtid ood aaminsan tahay inaad uga fiican tahay qabiilka iyo qoyska aad ka soo jeedid inaad uga fiican tahay qofkan inaad aaminto maxaad la mid tahay qofkii kalarka wax ku cunsuriyeynayay oo kale gaalkii dhahayay anigu waan caddahay oo kaa madow waan ka fiicana adigu isku fikiraad tahay munطalaq waaxidaad ka indilaaqaysaa hal meel ayaad ka wada fikiraysaa waa in macaayiirtii iyo caqligii iyo diintii oo dhan in meel la yska dhigay macaayiirtii jaahiligana loo baxay jahliga macaayiirtii ku dhisnayd in loo baxay waxaad kaga duwan tahay fikradda gaalka oo aaminsan in yacni midabyada dadku ay ku kala fiican yihiin marka qofku hadduu aamino inuu qabyaaladda iyo qabiilka iyo qoyska uu ka soo jeedo qofka kale uu uga fiican yahay waa nooc jaahilnimada ka mid a nabigeennuna wuu ku tilmaamayba sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xadiis saxiixoo nabigeena ka sugnaaday sala allahu wasalam wabaaraka caleyh saxaabi la dhihi jiray abi darin alkhifaari ayaa nin kale oo saxaabiya qoys kale ka dhashay oo xabasho u dhashay saxaabigaasi bilaal alxabashi uu ahaa wuxuu ku yidhi yabna sawdaa islaan madow waa ku dhashay markaasaad nala hadlayso yabna sawdaa annaguna carab ah bilaal nabiguu ku dacweeyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh abi dar alkhifaari nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu ku yidhi acayartahu biummih inaka mru'un fiika jaahiliya ma hooyadiisaad ku ceebaysay kalarkeeda ma hooyadii qabiilkeedaad ku ceebaysay jaahilnimaa kugu jirta abi darow jaahiliyadii iyo diin la-aantii laga soo tegey iyo cilmi la-aantii laga soo tegey qeyb ka mid ahaa kugu jirta abi darow acalaa kibari sinni yaa rasuula allah anugu islaamku da-dan ku gaaray miyaa jaahilnimo weli ugu jirtaa huyi nabiy llahi maxamed sala allahu alayh wasalam da-dan miyaa jaahilnimo ugu jirtaa nabigu nacam haddaad saasba u fekerayso fikradda hadday kugu jirto dadka in lagu kala fadilo kalar iyo qabiil waa jaahilnimadii ayaa kugu jirta laga soo teguu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka waxyaalahan qabyaaladda iyo cunsuriyadda
shakhsiga aaminsan waa shakhsi jaahilnimo qayb ka mid ah ay ku jirto sida nabigu uu noo tilmaamayo sala allahu wasalam wabaaraka caleyh abi dar alghifaari markaasuu madaxiisa intuu dhulka dhigo raadiyey bilaal alxabashi ayuu wuxuu yidhi carrada intuu madaxiisa dhigay abi dar uu yidhi halkaa iga istaag raalligelin aw iga raalli ah kalar iyo midab iyo qabiilan kugu dulmiyey halkaa iga istaag buu yidhi igana raalli ah markaasuu dhaartuu yidhi wallahi inaanu kugu istaagin intuu ooyey bilaal alxabashi kugu istaagay mar kale dhacdo kale ee dhacday xilligii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ee qabyaaladda ku saabsan iyadoo nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi duulaan lagu jiro ayaa saxaabadu waa kuwii u qeybsanaa ansaar iyo muhaajiriin ansaartii muhaajiriintii nin ansaariya iyo nin muhaajiri ah ayaa feer isku dhuftay oo dagaalamay ansaarigii wuxuu yidhi yaa lal ansaar ansaarey iisoo gurmada muhaajirigiina wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin muhaajiriina iisoo gurmada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi wuu maqlay ereygii iyo kelimadii in laysku habar wacanayo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum dacuuha dacuuha fa inahaa muntina maanoo dhexdiinna joogaad jaahiliyadii u laabateen ka taga waa qurune ka taga waa qurune abidacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum anuu hadda idin dhex jooga miyaad jaahilnimadii aad dib ugu laabateen dacuuha ka taga fa inahaa muntina qurun weeye qabyaaladda ka tag buu yidhi nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waa wax laga yaqyaqsoodo oo sanka laga qabsado oo qofka muuminka ahi uu iskala weynaado weeye qabyaalad iyo cunsuriya qabyaalad oo qalbigiisana uu ka ilaashado dhaqankiisana inay soo gasho ay ka mid noqoto waa inuu iska ilaaliyo qofka muslimka ah marka xadiiskaasina wuxuu tilmaamayaa nabigu inuu qabyaaladda uu ku tilmaamay jaahilnimo haddana jaahiliya inuu ku tilmaamay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu tilmaamay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh inay ka mid tahay qabyaaladnimada oo la aamino asbaabta lagu garo naaru jahannama walciyaadu billah xadiis waxaa jiray imaam axmed uu musnadkiisa ku wariyey oo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh uu ku yidhi man dacaa bidacwa aljaahiliya fahuwa min juhaa'i jahannam min juhaa'i jahannam jamaacada jahannamo lagu xaabaynayo oo jahannamo halkaa lagu cadaabayu ka mid noqon qofkii jaahiliya dadka ugu baaqa iyo casabiye iyo qabyaaladnimo saxaabadii waxay yidhaaheen yaa rasuula allahi wain saama wain sallaa wain saam xataa hadduu soomo oo u salaado qofka qabyaaladnimada aaminsan ma jahannama lagu cadaabahay rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi wain sallaa wasaama wazacama annahu muslim ha soomo ha salaado ha sheegto inuu muslim yahay jahannama xaabo looga dhigo oo lagu cadaabayaa yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam leannahu qofku markuu aamino fikraddan cunsuriye iyo qabyaalad markuu aamino xaaraan kasta ayuu xalaashanahay wuxuu xalaashanayaa qofkan qabiilkiisa ahayd qabaa'il kale ka soo horjeeda dhiiggooduu xalaashanahay soo heer hebel ma aha hadduu masaajid usii socdo madaxuu ka jebinahay limaada waa qof beri ah waxa dhacayba aan waxba ka ogeyn xataa waxa dhacayba waxba kama oga muxuu ku mutaystay in la dilo wuxuu ku mutaystay oo dembi looga dhigay qabiilkan maxaad ugu dhalatay weligaa masaajid u soco sow qabiilkaa uma dhalan dembigaagu waa inaad jaamac iyo qansax iyo geedi aad ka soo jeeto halkaas way dembiga aad gashay wax dembi laysaga dhigaa sow jaahilnimo maaha marka jaahilnimadii nabigu tilmaamayay sow maaha sala allahu calayh wasalam sow maaha qofkaasi inuu yacni gelayo dadka jahannamo ilaahay ku ciqaabayo liannahu yastaxillu dimaa'a alabriyaa qofku hadduu cunsuriyadda iyo cudurkani uu galo
وهير هبل ودك ودلها وهير هبل وحوله ذا قادنا على شيء سنة وهير هبل قبضا أي عرض كذا الشرف كذا وقلت منها والله يا أبو قبضه هير هبل إنه عرض كذا الشرف كذا وبنايسته يا كرامة كذا وبنايسته لماذا محيط دم بقلب هذا هير هبل ونقط هير هبل الحظ أكبر جاهلية أكبر جاهلية جاهلية ما مدعوهم جاهلية ما مدعوهم ولذلك قفك نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحكوت المامي قبيالة راية أمية حديث كما مسلم صحيح سوكوري راية أمية من قاتل تحت راية أمية أو دعا إلى عصبية يغضب لعصبية ينصر لعصبية فقتل فقتلته جاهلية النبي صلى الله عليه وسلم وحير قفك كهوس دقالما علم إندلا وكتل مامي دقالة كسليسان قبيالة قومية علم إندلا قفك كهوس دقالما هل قال جيدا علم إندلا علم هو مريض إندلا ملهاني وحو كلا جيدا النبي صلى الله عليه وسلم علم إندلا قفك كهوس دقالما ولجيدا النبي كلا صلى الله عليه وسلم وحوي ودقال أن إلهي رالك أهيد ميل وجيدا أن لقرني ودينتو أيسان أقولين دقال أن هدف ولجيدا كلا لهيد إلا dad abriyaah in la barakiyo dhiigooda la daadiyo mooyee dagaalka noocaas la yiraahdo calan indhala qof ka hoos dagaalamo dad masaakiin inuu xasuuqo waa abriyaah meel degan oo uu xasuuqayo u dilayo maxaad heer hebel u noqoteen calan indhala uu nabigu ku tilmaamay qof ka hoos dagaalamo meel uu socdaan karan maqsad iyo ulajeeda aan lahayn ilaa fidna iyo dhiig daadin mooyee قلنا قفك نوعاس يغضب العصبية ومركو عرونا ينو عرونا يا عصبية يا قبيلة ينصر عصبية مركو قفكه لنا ينو لنا يا عصبية يا قبيلة هدف كلا دين مجرته كرامة مجرته شخصية مجرته وحكلا وفيرنا يا وقفكو قيمنا يا مجرته إلا قبيلة وفدوه لنا يا قبيلة لنا وفدوه كدلا يا قبيلة وحكدلا وكان نوعاس وكلا النبي صلى الله عليه وسلم وحيري فقتلته جاهلية هدين للدلو دين لانو كل انت قتل الجاهلية جاهلية كل انت النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية معنى الضرر يسجل من جرت حرب البصوص دقال الذي يجري الجاهلية أو كلا يا دقال الجاهلية قارة وحكب الله من جيران ايو دقال لما او كان اي جيد دلي كان اي جيد دلي الله بقى بالبك كان ايغي دل كان ايغي دادا u dhamaan jiray boqolaal ay galaafan jireen eeyo dagaalamay kaliya professor waa jaahiliye oo dib loogu laabtay iyo diin la'aan oo dib loogu laabanayo ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه حتى المامي قفك قبيالده وحكم ميزامه وحنا ku cabira dadkana u laaya una xaqira qabyaalada in ilaahay agtiisa uu uga dulaysan yahay bahalkan la yiraahdo juclaanka Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa waa bahalkan doorshaanka la yiraahdo ama xarwalwal dadka qaarna ay u yaqaanaan juclaan af carabiga lagu yiraahdo juclaan xadiis jiray Abu Daawud oo sunankiisa ku wariyay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri لا ينتهين أقوام عن افتخارهم بآبائهم في الجاهلية أو لا يكونن أهون عند الله من الجعلان ذاتك كفانا يا قبيالة يا آبيال يا أوويال أو هبلا كسو جيدا آب هبلا كسو جيدا ذاتك كحقرية كل الدقالما يا هذه يسمى فعل كاجوجين إلهي أكتيسة وحد وقد اللي بديهين بالك حارب الوالك وولي تاقف كاس إلهي أكتيس وزن إيا قيمة إيا مقام إلهي أكتيس أكويا لنا يوم ملها وأسباب جهنم اللي كلا يوم قف مؤمن
haddaad u dishid waa heer hebel waa qabiil ogaad waxaad soo geli qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanah waacadda lahu cadaaban cadiima 5 arrimood oo waaweyn oo cuquubaad kala dardaran ah ayuu ilaahay ku sheegay qof muumin ah qofkii xaqdarro u dila fajazaؤuhu jahannam in abaalmarintiisu jahannamo ay tahay jahannamo lagu abaalmarina khaalidan fiiha asagoo jahannamo ku waaray waqadiba allahu calayh ilaahay uu carooday walacanah ilaahay lacnaduu ku riday waacadda lahu cadaaban cadiima cadaab weynna ilaahay waa u diyaariyey waa qofkii qof muumina xaqdarro ku dila qabyaaladaad u dishay masjiduu isaga socdaa goofkiisuu ilaashanayay awrtiisa iyo dhaankiisuu iska watay wuxuu ka ogyahay ma jiraan mashaakilka waa ahlu naar qabiilka aada u dagaalamayso qabiilka aada magacoodii wax ku laynaysana berri ogaaw qabriga haddii lagu dhigo kama difaacayaan waxa ku qabsan doona xaaladda adag oo ku qabsan doontana ma kaa difaaci karaan tabarna uma hayo awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa adduunyadan xilligan la joogayana waa wax iska kooban qof wax loogu darayana ma jirto beri markaad dhimatid war qabiilku ha isku soo dardarsado xasanaadkiisii ya xasanaadkiisa isku soo dardarsado qofkan si uu aada u badbaadisaan ya ma jirto qof wax loogu daraya malaha hal xasano qofku siin kartaahi ma jirto hal dembi qof kaa ridi kartaahi ma jirto waa qof walba keligii qof walba keligiisaa ilaahay u xisaabay subxaanahu wa tacaala walidaalika jaahiliyadii markaad fiiriso gabayadoodii ninkii la dhihi jiray durayd ibnu samah gabaygiisii oo kale wuxuu dhihi jiray wamaa ana min ghaziyata wamaa ana ila min ghaziyata in gawat ghaziyatu gawaytu wain tarshud ghaziyatu arshudi wamaa ana ila min ghaziya ninkaa jaahiligaa wuxuu leeyahay anigu qabiilada heer ghazi la yidhaaho ayaan ka soo jeeda in gawad qabiiladeedu hadday baadiyowdo gawaytu anna waa baadiyooba wain tarshud ghaziyatu arshudi qabiilada heer ghaziye hadday hanuunaanna waa la hanuunayo hadday baadiyoobaanoo naar galana naaraan la geliyo muxuu uga duwan yahay qofka xilligan jooga oo qabyaaladda aaminsan gabayga ninkaa uu tiriyo waa qabiilku hadduu dhiig daadiyo naar u socdana waa la gela dhiig hadduu daadinayo oo hubka uu qaato waa naar hadduu gelahay waa la gela hadduu dhiigga joojiyana waa la joojina waa fidnadii namadkii iyo noocii jaahiliyadu ay u dhaqmi jireen waxaa lagu soconayo waa caqli dar walidaalika waxaa loo baahan yahay arrinka noocaas oo kale ah wacyigelin badan in bulshada laga dhex sameeyo seminaaro loo qabto la wacyigeliyo cadaabka iyo dhibaatada qabyaaladdu ay leedahay laa siyamaa hadda waayahan waxaa ugu badan dhinaca gobollada ugu badan cunsuriyadda iyo qabyaaladda iyo waxa la ysku laynayo dhiigga xaaraamta la daadinayo dadka noocaasa waxaa laga yaabaa wacyigelin badan haddii loo sameeyo odayaashuna ay go-aan ka qaataan oo qofkii qof xaqdarro ku dila isagana tiirka ha la soo taago 100 goor waa la yidhaahaa laakiin lagama dhabeeyo mushkiladu meesha ay ka taagan tahay waa in la taabto lagama dhabeeyo odayaashu mar walba waxbay saxiixaan reer hebel haddii reer hebel isdilaan qofka gacan ku dhiglaha tiirkan kusoo xirina war macaano afka malab la soo marsanayo ayaa midiyaha la isku soo marsiiyaa qurux badan laakiin haddana waxba lagama qabto marka waxaa loo baahan yahay laakiin ninka noocaas oo kale daalimka ah haddii gacanta la qabto tiirka lagu soo xiro mushkiladdu way dhammaan lahay haddii dadka ganacsatadu aysan xawilinin lacagtooda
oo ganacsatada qaarkood hubka ay iibinayaan ay joojiyaan oo gacansiinta qabaa'ilku markay dagaalamaan ay dhaqaalaha ka taageerayaan ganacsatada qaybo ka mida ay joojiyaan wax badanaa daawoobi lahaa dagaalku ma soconayo qarash la-aan qolaa gadaal ka riixaysa oo baqaarada u fadhisa waa cadaab iyo ihaano qofka maalkiisii laba qabiil oo dagaalamaya mid ku hubaynaya qof walba ee lagu dilo lacagta uu qabiilkaa ku bixiyey lagu dilo cadaabuu ku gelahayaa ilahina waa ku xisaabinahaya subxaanahu wa tacaala ilahi wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wanaagga isugu kaalmeeya laakiin dembiga ha isugu kaalmaynina qabiilkaagu hadduu dembi ku jiro ka beri noqo waxaa laga yaabaa dad badan oo dhiigga daadanaya qabaa'ilka iyo cunsuriyadda iyo qabaliyada ku salle oo masaajidooda jooga baqaaradooda jooga guryahooda jooga oo marka aan dhiig daadinayn inay si kale iyaguna dhiigga u daadiyaan oy si kale uga qayb qaadanayaan waxaa ka mid a inuu ku farxo oo markii heer hebel laga dilo 20-30 laga dilo oo yidhaha maa shaa allah qoyskii ma 30 laga dilay maanta wallahi waa la jebiyey muxuu uga doon yahay moryaankii marka dhiigga daadinaya hadduu ku farxayo qof muslim ah ee cadad iyo tiro badan laga laayay wax kalena uusan ugu farxayn ilaa inay heer hebel yihiin mooye heer hebel ugu farxayo waa tegaya waxaa laga yaabaa inuu fadhi ku-dirirka shaah ku cabo uu yidhaahaye labadii qabiilkii yani qabiilkii kale naga soo horjeeday imisaa laga dilay 10 annagana 2 ma sha allah guul wey guul waa la guulaystay ee hebel ha laga qaado intaasoo lacag ha lagu qoro ha la sii laayo oo markii qolada kale cadad badan laga dilana uu farxayo ya qolada markii cadad yar laga dilo waa farxad markii qoladooda cadad badan laga dilo waa murugoonaya waa qurboonaha walaalkiisa muslimka ah ee muuminka ah ee qabiil kale ka sii horjooda haddii cadad badan laga dilana waa bishaaraysanahay mooryaan weeye isaguna gacan ku dhiig la-ah gacan ku dhiig le qalbi ku dhiig le iyo af ku dhiig le iyo doolar ku dhiig le weeye dadka ina doolar dhiigu ka shubmayo ku taageerayo hubka ku iibinayo wax farqiga u dhexeeya ma jira waxaa la doonaya qof muslima haddii la dilo ka qabiilkaaga kan ka soo horjeeda inaad tiraahid anigu beri ayaan ka ah haddaadan wax kale u qabanaynin in ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigooda isku soo damo ka shaqe ilaahay u bari laakiin haddaad ku faraxdo oo qalbiga aad ka farxayso oo doolarka aada dirayso dee maryaankaa dhiigga daadinaya iyo adigu isku midahti ilahay agtiisa xadiis nasaa-i uu warinayay ayaa nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu ku yidhi lazawaalu اdunyaa ahwanu cinda allahi tacaala min qatli rajuli muslim adduunyada dhan oo baaba-da ayaa ilaahay uga fudud hal qofoo muslimoo xaq darre lagu dilo adduunyada dhan daaraheeda iyo dahabkeedoo la baabi'iyo way ka fududahay hal qofoo muslima xaq darre lagu dilay walidaalika haddii bulshadu ay moryaankan qabyaaladda wax ku dilayaan hal dhinac ay ka noqdaan oo oday dhaqameedku meel uu ka istaago mowqif adag uu yidhaha kugulama jiro waa kugu kaliba ganacsatadu ay mowqif ka qaataan adag oo yidhahaan inagu hal shilinkeena cadaab ku iibsan mayno culimmadu ay mowqif ka qaataan iyaguna oo yidhaahaan idinkulama jirno heer hebel oo ahlu naaratin haddaad heer hebel ku duurshaan oo wadaadku runta uu u sheego qabiilkiisa inuu u mas'alo xumeeyo waa dhib oo yidhaha saa'iliin weeye heer hebelna waa weerar idinku yihin horor kuwa kalena horor ma aha adinku horor ma tihin kuwaasaa horor masalo walba wuxuu dusha ka saarayaa qabiil ka soo horjeeda waa xukmu saa'il wey maxaa saa'ila ba qof gurigiisii iyo deegaankiisii iyo goonin lagu haystaahi ma jirto waa laga wada qayb qaatay weerarkii saa'il wadaadka kan kale ku jirana wuxuu leeyahay kuwaana saa'il oo horor haddii marka wadaadadu ay mowqif ka qaataan adag oo nabadoonnadu ay mowqif adag ka istaagaan
oo ganacsatadu ay mowqif adag ka istaagaan abadan wax dhaqaajin karaa dagaalkaas ma jira wax dhaqaajin karaa wadi karaa ma jiro fidnaduna way baabi'i lahayd ilaahayna waafajiyo subxaanahu watacaala meesha ridihiisa iyo raxmadiisa ay ku jirto allahna waafajiyo hada billahi towfiiq alxamdu lilah sala allahu wasalam wbaarak calaa sayidina maxamed wcala alihi wasaxaabati alkiram ajmaciin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين الحمد لله صلى الله عليه وسلم